أنا maamulkii madaxweynaha ka sareeyay oo go'aan degdeg ah ku deeran ka mahadnaqaana waysan lana geek walaal inta surugna way buuxa inii maray farxadii shalay nimankii la toogadi oo ma raayis wali beddelka una fadaan malka dilnay dabgal ku leeyahay dabgal ila ku hayti way fadaan inii ma raayis reer koonfur galbeed gaar ahaan reer gobolka Baay isag may buu gacmo haysataan walaagas walaay noocaas la ka sheegay talaabo sharci tan ee ku yeelka ka qaado doona waysan lana gacmo haysada wala adduunka hor ku dhina magal kufsada hor ma aragna magal ciyaal kufsada hor ma aragna walaagaas way ku dambooya wal magaalada ay kala sugan oo meel raayis meel amni ku noqon shaqay lahayn masaakin dooran ku badan lahaayeen oo walaasnay faafiyo hay diinta una tan inay kala ma diin gaal u diin muslim ma inay una diinta gaal hor jeesanaan una dad islaamiyana dad waliba ma raay wadan soo dad ma raayis kaniisadan ka dhisnaa muslimadu ma raayis qaaliga taana ma ogolina inay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما انشع وينها كوفر قلبات وليبا جيك هندسك بناي بنام بحلك التاجر يدلكي شلي لك سوبي منكي قوم اللوت كهاين أولادك وفسداين بنام بحا سيتي سديسن أرجاسن وليبا هبهاي لما انشعبك كوفر قلبات أو يكون مدين أرضي سكولات كذاتي جرعت تدي أضياشي إيو معمولكي قيبو شيء شل قديسن ساس أوكل ولي أن مهد نجانة دتكي شلي يدلك فلي أو يكون مدين كسمها مدحوينها دولة جبلاتك كوفر قلبات أهنا وزيرك وزارة أبنك دولة جبلاتك كوفر قلبات يدمان ما إلا رئيس معمول كقيبو شيء شل قديسن ولا كلام مهد نجانة مدحوينه دولة جبلاتك كوفر قلبات أو كرهالة نجديني لا ضمن من كلمات جايسدي دلك صوبي ساس أوكل ولي جرى بلدك شعاع بدن أو كفرم بلدك للي ويران ترسيات بقول قف يك جرت أو قوم اللود ولا قسم أقوليني شعبك ما أقول ربيتانك شعبك إنه كشقينه فذانا مجال كفصل دينتنا مقبت قبل بقى إن اللي كفصل بناو ميل رئيس إن اللي كفصل ميل رئيس دينت إن اللي كفصل بناينا لما شعبك كفر قلبت ولي لنا لن والبو دبعت سين جيس ده هالشيء لن والبو نجين دبعت هالشيء نمن كفر كاسك كهاي أو فضايا إني دبعت بلدكم كسوبيان ولي عد سدان إني بلدك سيدك دقة يوم كبهان هديكو بهوايان سيدين منك شلي لوالي يلا ولد دون وبيلها لما أنتي إذا ما تنتين بنبحر ولي لك تاجر هاي دعدي شلي كردي بيدو أو هاي دلكين منك قوم اللوت كبيدو لك دلي يلا كتاجر هاي لما أنتي إذا ما تنتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدوميها دقمة بيدو حسن معلن أحمد بيكول يا ميبا بنام بحيالكم سنشاقي انسي وذي جرئة لن لدقالة هان رقم حمود كوذ قدها مقالة بيدو way ma hadlay shacabka ka qayb galay xafladan beelay banaanbaha oo ka dhiidheeyahay in beelay samahay humaanta iyo dhalin rogol ku suubiyahay dalka Soomaaliya ama koonfur galbeed gaar ahaan degmada Baydhabo oo humaanta ka dhagaagay oo abaal shoodan la maray waajib shoon waxay la maray dawladda waajib shoon mareedi dawladda marka hore dawladda aan mahadnaqaan dawladda ha guulaysato koonfurka ha guulaysato madaxweynaha koonfurka ha guulaysto madaxweynaha koonfurka ha guulaysto madaxweynaha ha guulaysteen guulaysta marka saas daraadeed way fadana meel raayis maxay lankasta oo Baydhabo ku nool dhibaatada la suubi rafaadka la suubi araga haytan shalay markii nimanka la dhamaay روبا كوي إلا تروب وذاي نعم إلهي كويتي هدول ساسة ولا لهاي إلهي عروض لهاي كباب لهاي دغرغان إدي لهاي كورساني دوردا كورساتي دلال بدل سوبي وحاوين بدحوينها قوليستو يعني way ka dhagaagay arrin muhiim ah oo dadka dalka muhiim ah ka dhagaagay ibrishi dheerdo lana la taliyaga madaxweynaha dhiniga haweenka Aamina Mursal yamayba ay sheegtay dhaqamada noocan haata oo ay yeemeelon ku dhiyaasa diinta islaamka iyo dhaqanka suuban maanta waxa way maalin weyn waaye maalin farxadeed waaye maalin mataqaana ay sheegay ummadii koonfur galbeed ku nool degmada Baydhabo oo dhan banaanka iskugu soo baxeen waaye sababaha u soo baxday waa dareemi kartiin waxa waaye mataqaana masiibadii mataqaana maalmahan ka socotay Baydhabo iyo go'aankii dhaxalgalka ahaa go'aankii sharafta lahaa ay qaadateen culimo awdiinkeena ugu horeeyo markii ay ka doodeen isla markii waxa go'aan sharaf la sii qaatay xukuumadda mataqaana dawladda koonfur galbeed iyo muxuu ahaa sheeg amnigeeda iyo saraakiishii iyo muxuu ahaa labada mataqaana sheegay gudoomiye ee mataqaana degmada iyo gobolka
muraayo iyo xaawo iyo anagoo dhan anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca mataqaanaa xafidullaahi cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen maartay waxaa sharafii ah inuu go'aankii ay soo qaateen mataqaanaa odayaasha dhaqanka culamaa awdiinka xukuumadda qolada amniga boliiska madaxweynaha markay u soo jeediyeen markii dhibaatooyinka halkaan ay ka dhaceen markii ilmihii dugsigii aadi waayeen markii iskuulladii laga reebay madaxweynehena ilaahay ha noo xafidee go'aan degdega ayuu qaatay wuu la fuliyey culamaa awdiinka mataqaana waxay codsadeen isla markii waa la fuliyey waxaan rabaa inaan halkaan ka caddeeyo aniga waddankaana u dhashay koonfur galbeed waxaa lagu yiqiinay dhallinyaradeeda dhallinyaro sharaf leh dhallinyaro aan gabdhaha hataa kufsiga iska dhaaf ragga eh aabbaad tahay waa dhalaysaa mataqaana maxaa kuu kalafay wiil 9 jir ah in la kufsado wiilkii shanaad ayaa maraynaa waxaan laguma yiqiin dhaqanka annaga ma kasayni wiilka koonfur galbeed waxaa lagu yiqiinay isagoo 7 jir ah inuu mataqaanaa 8 jir ah inuu 114 kor u ka yaqaano waxa dhaqan annaga aan leenahay ma ahan waa nasiib darro waaye waxaan filayaa shalay wixii halkaan ka dhacay iyo mataqaanaa falkii quruxda badnaa ee lagu sameeyey labadii nin gudoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Doyow yamay baadhinishay uu sidiirin handhawaayay qisaastii shalay dhiidi uu soo sheegay in tiirka la jeeyo doono qofkii kufsijeysada oonay toy umay bilatun ku dhii walaa lagu horseeday shalay dadkii dambiida galeen oonay toy laga qaabay ma indigaane anta kale oonay toy damaasnaati saas lankasta oonay toy ka gabood fala may leeray iyaal iyo qof wiig walwal oonay toy gabood fala oo dalkun ku dhii lanjo may waa ti shalay nasuubiya antaala waajibsho la mariye wala ay qaabe may ba sheegana dadweynaha lan alla iyo lanki ku wareelan lan alla lanki ku ogaadan arrinteeda ay wal ka lug leeyni sheegan ha sheegan dadka oo arrimayo iska dayow may baa nimay gudigaane naftiyo halisan gelina may baa way go'aanka yaala may koonfur galbeed in lanki gabood fal suubi lanki ka suubi iyaal isku dhaaf lanki bilaan ka suubi oo naad in saas lan dilo lanki bilaa may hoog in la dilo lanki iyaal farxuma in la dilo dambiidaasi oo noy toy haarantay lanki suubi may waa in la iqaabo yaa sheegan salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh